وكان صومالي قريش بيا قلي إله ما دسكله aniga dabaal ma aqoonin dadka kale ayaan dhahay ii badbaadiyay ilmahayga ayaa ka mid ah ereyada aabba xasan oo saacadihii la soo dhaafay 5 caruur oo uu dhalay ay hortiisa ku nafbaxeen inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya ayaa martigelisay dhacdo mucjiso ah oo musiibo lagu tilmaami karo roobkii ka daaya caasimadda waxay abuureen dhacdo xanuun badan iyo dhimashada 5 caruur oo wada dhashay degmadii ay ka dhacday arrintan qaabku caruurtu daadku u qaaday oo aabaha dhalay caruurta ka sheekeeyay aabahan Soomaaliyeed oo loo garanugay Xasan ayaa waxa qabsatay dhacdo rabaani ah oo aad u xanuun badan qof walba oo dareen la ayaana ka damqanaya sida meeska soo bixinayso waqti guriga markaas ay ku sugnaan guriga hore oo degnadeena mise guri kale oo guriga aan ku degneen waa ka guuna biyaha ama soo galay mar walba soo galaan marka soo galaan biyaha waa ka baxnaa guciyalkan kala baxnaa diriskan geysana diriskii aan geynay ugu galaan biyaha hadana Soomaaliyadaas ilmaha soo bixiyeen aan dabaal ma noqonin dad dabaal yaqaanay ciyaalka dhalinyarada dabaasha yaqaanaa galeen meeshii sidii lagu soo aruuray adiga hadda muuqaalka daawanaya ugu ducay in badal qeyr qaba Allah uu siiyo una shargaray dadka kale si ay u arkaan maamulka deegaankaasi oo ay wax uga qabtaan qorsheynta ama yareynta halisaha roobka uu keeni karo iyadoo laga gaashaamanayo muqdisho waxay martigelisay daadad waaweyn balse aan gaarsiisnayn heerkii ugu sareeyay xilli degmooyinka dhaca dhulka jawigiisa hooseeyo ay dhibaatooyin badan laga soo calaamadeeyo markay caasimaddu roobaysato aabahan oo lagu magacaabo Xasan Cabdullaahi waxaa roobkii muqdisho uga geeriyooday 5 caruur ah 4 wiil iyo 1 gabar maanta uu geeyay gurigoodii dhabta ahaa 2 meel oo aan kala fogeyn ayaana lagu kala aasay xanuunka dhacdadan qof kasta ayaa dareemi kara aabba Xasan isagoo dul taagan qabriga caruurtiisa ayuu ku dulooyay waxaana uu dhibaatadiisa u sheegtay Allah oo kaliya xilli uu tilmaamay qaabkii ay mashaqadu u dhacday maadaama uu deganaa xaafadda Buulxoobe oo ay daadadku ku badan yihiin marka ay roobabku da'aan anaa idin taagnaaba oo ma dhahay mid iga maqan kaas iga maqan isoo bixiya yaa muslim hu isoo bixiya aan ku arag إله ما دسكله إنا لله وإنا إليه راجعون أورطة بعضهم غير شيء تضوي إلى شيء ما اللي حي إلى شيء لو قبل أفر بلاهين هل قبر أي نول وبيها لك صار لح بحي أي نول su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay muqdisho oo ah caasimadda dalka ay ka dhacday musiibadan maxaad u malaynaysaa deegaanadii iyo goobaha kale ee webiyada ka agdhow yihiin ee inta badan fatahaadaha la kulmi kara aabahan Soomaaliyeed wuxuu dadka muslimiinta ah ee Soomaalida ah meel walba ay joogaan ka codsanayaa inay ku garab istaagaan guri uu kula noolaado tirada yar ee caruurtiisa ah ee Allah uu badbaadiyay caawimada saxtan ma haysano hooyigii wax dhan way barnaamijyada gaday hayeen walba dadka qaaday macal alaabta lagu jiifanayo wax dhan dadka qaaday waxaan codsanayaa hadda dadweynaha naf ma ii soo celin karaan hooyi aan saxnana in ay igu caawiyaan aan codsanayaa waxaan ciyaal ku seexsanaa wixii dhan hal way buubuuraa furaha 2 furaha 2 ilaa dhamaadka haddii aad nala joogtay ku caawi aabahan wax walba oo suurtagal ku ah inaad ku caawiso halkii aad muuqaalkan like ka saari lahaydna ku muuji emojiga dareenka lambarka aan qaybta commentiga soo dhigi doonana ku caawi wixii aad heli karto